halkani waa deegaanka qarsooni oo dhaca meel aan ka fogeyn tuulada Labeceel oo hoos tagtay degmada Bacadweyne ee koonfurta gobolka Mudug waxaana halkan si iskooda ugu deegaamay boqolaal qoys oo kamid ah dadkii ka soo barakacay dagaaladii iyo duqeymihii xoogga lahaa ee muddadii sanadaha ka socday degmada Bacadweyne iyo deegaanada ku dhow sida Qeeycad, Buula Sambuur, Xaarxaar, Shabeelow, Xarar Dheere, Cimaamad iyo qaar kale ayagoo kumanaan qoys oo kalena ay ku baasan yihiin dhulka miyiga ee ku xeeran tuulada Labeceel taasi ay u sii dheertay abaaraha ba'an iyo bilaanta ka jirta deegaanadan oo aan helin roobkii sanadka dadkan ma helin wax gargaar bini'aadanimo oo ka yimaada dhinaca dawladda iyo dhinaca hay'adaha samafalka marka laga reebo hay'adda ICRC oo mucaawino dhowr boqol oo qoys gaarsiisay muddo 3 bilood oo ku ekeed bishii 9aad ee sanadkan dadkan oo uga mahadceliyay hay'adda ICRC xilligan dhammaan dadka deegaankan ku nool waa isku mid waxaana xusid mudan in gargaarka cunno iyo nafaqo ee hay'adda ugu ballaaran caalamka ee qaramada midoobay ee WFP aanan waxba ka soo gaareen dadkii muddadan ku dhibaataysnaa deegaankan ayadoo muddo dheer lagu wargelinayay WFP dhibaatada cunno la'aaneed ee dadkan haysata isla markaasna iska indhatireen baaqida dadkan tabaalaysan ka soo gaaraya dadka deegaanadan ku soo barakacay ee ka hadlayay kaalmada WFP ee cunnada ee laga bixiyo deegaanada gobolka Mudug ayaa waxay sheegeen in laga bixiyo deegaanada hareeraha ka ah deegaankan taasi ay ku sababeeyeen in madaxda Galmudug iyo wasaaradda gargaarka iyo shaqaalaha hay'adda World Vision dadkan reer Bacadweyne iyo deegaanada kaleba inay si gaar ah uga dagaalameen helidda gargaarka ay mudnaayeen oo aan soo gaarin sidii hadalka u dhigeen taasi ay ku macneeyeen in si gaar ah iyaga loogu bartilmaameedsaday si kastaba ha ahaatee dadkan laga go'doomiyay gargaarkii dawliga ahaa iyo kii samafalka ayaa waxay codsi u direen hay'adaha deeq bixiyaasha inay gargaar la soo gaaraan maadaama ay ka soo barakaceen guryihii iyo deegaanadii ay deganayeen ee koonfurta gobolka Mudug halkaas oo muddooyinkii u dambeeyay dawladdu ay ka waday dagaalka ururka Al-Shabaab waxaan ahay guddiga gurmadka iyo horumarinta ee deegaanka Bacadweyne sababta ay ku caawiweysay WFP dadka meeshaan isugu yimid qarsooni iyo dadka kale oo maqanba WFP horta sideeda waxay u caawiweysay dad danal deris ay caawisaa sida Bajeele, Usil, Qarsibaalkii, Culguula areas caawisa shaqo fulintana waxa u xisaabsan hay'adda World Vision shaqaalaheeduna waxa weeye waa dad wasaaradda gargaarka ka tirsan waxa la wixii u soo baxay deegaamada iyo dalkana dadka ayaga khuseeyo oo la dhashay walaalahooda ay mar walba caawiyaan deegaamada ilaa Hobyo ilaa Qudbud ilaa Afbar Waaqo areas ay leedahay maadaama ay wasaaradda gargaarku ay maamulayso World Vision ka shaqeynaya wasaaradda ku shaqeynaya marka deegaamadooda iyo dadkooda ay la aadaan sempre saasan ku qatanaa baaqa andirana waxa kamid ah hay'adaha dawliga iyo kuwa madaxa bannaan iyo kuwa kale oo ay arrintan qusayso inay ummadan ka soo gaaraan xisiyaan dawo male raashin male biyo male ceel biyo soo saqaysan yahay ku nool yihiin waa dad isku soo aruuray ilaa 2 sano qax ku jiray sanadkii hore waa soo qaxan sanadkan waa soo qaxan hadda qaxay ugu dhalaala ilaa bishii 10aad wax soo gaaray dadkaas oo caawina ilaa bisha casoo 3 bilood qayb kamid ah caawisay maadaama ay intaas caawin ka arkeen waxaan markaa leenahay hay'adaha dawliga sida Sodmahoka World Bank kuwa madaxa bannaan intuba ay ka soo gaaraan kuwa muslimka ah kuwa koreeyaha ah hay'adaha samafalka ah kuwa dawliga ah kuwa kaleeta oo dadweynaha ka dhaxeeya waxaan ka codsanaynaa dadkan oo ah dad miyiga markii hore ku dhaqnaa xoolahoodii inay noqdeen waa martay oo barakacayaal waxaan ka codsanaynaa hay'adaha kuwa dawliga ah iyo kuwa kaleeta waxaan ka codsanaynaa inay ka soo gaaraan maadaama sanadyo abaar ah ay ku soo mareen oo ay noqdeen kuwa baad iyo biyo iyo wax la cuno midna labadaba ay ka dhamaadeen waxaan ka codsanaynaa hay'adaha kuwa samafalka ah iyo kuwa kaleeta iyo kuwa dawliga ah iyo kuwa maamulada labadaba dawladda Galmudug midda Soomaaliya ugu sareysa waxaan ka codsanaynaa inay ka soo gaaraan 24 saac haddii aan laga soo gaarin 24 saac dadkaas waxa ay noqonayaan kuwa aan xaaladoodu caadi ahayn waxaan codsanaynaa hay'adaha samafalka dawladda Galmudug wixii maanta islaamaad waxaan codsanaynaa dadkan wax soo gaarsiiyay dadka
dadkan waxa wax baahiyo u dhiman ma jiraan waxaan hadda soo aragnay dadkan oo maaragtay dad kamid oo qayb kamid ah oo waxaan soo aragnay biyo la'aan aawadeed 170 kiiloomitir oo aan lahayn wax biyo iyo wax ceel gacmeed oo ay dad ilmuhu aan ku aragnay xitaa qayb kamid ah ayagoo inta xoolo calooshooda jeexay uuska cunaya aan ku aragnay way biyo ka dhiganay marka waxaan u sheegaynaa dadka islaamka anigu hoggaan dhaqan haddaan waxaan u hadlaa waa dadka yaan u hadlayaa marka waxaan leeyahay hal laga soo gaarsiiyo dadkan hadday caawa iyo habeen dambe la moogaado qayb unbaa ka dhimanaysaa musleenahay marka waxaan u sheegaynaa dawladda federaalka midda galmudug hay'adaha samafalka maaragtay dadka jaaliyadaha dibadda inay dadkan soo caawiyaan xitaa ganacsatada inay soo caawiso yaan doonaynaa dawlad loo sinaaday iyo lawaa calankii saarnaado sunnihii rasuulkii ladii sawdkii nabigeena nin waliba intuu seeftu intuu saaray madaxeeno inta kaliya meel saartay iyo dibida sayra sidii awrkiisoo yeel buu xumaan daba saqleeyay oo allihii sameeyana ma oga nimanka saasiyeena oo sabhariira naartii cadaab weyn sugayaan oo dadkii aad u dhaarateen waa dadkan dadkii aad u dhaarateen xaquuqdooda ka doonaya waa dadkan waxaana weeye waana dayacay biyo male oo waxay cunaan male waxaanu idin sheegaynaa 170 kiiloomitir oo hal motor aan lahayn hal ceel gacmeed aan lahayn bini aadam ku noolaa kara waxaanu idin sheegaynaa inay marqaati fur idinku noqon doonto ilaahay wajigiisa maanta la hortago ee marqaati fur idinku noqon doonta hadda istiraadaan dawwala ka carara qoor orda waa marqaati fur waa kun iyo 772 qoys marka dadkaas oo aan haysan wax biyo iyo wax waxaan dadkaas in Allah leeyahay hay'adaha caalamiga iyo in Allah intii ku shaqale in ay ka soo gaaraan iyo hay'adda federaalka ee Sodma shabeelow daashi raamad intaas aan ka soo barakacnay dadkaan ku soo barakacay sanadkii ugu dambeeyay bishii 10aad buu soo xawlo markaas ay u jeedeen wax biyo ma haysano hay'adaha waxaan ka codsanaynaa gargaar oo biyo oo daawo oo caafimaad leh intaas baan ka codsanaynaa iyo hoy